السلام عليكم iska warrama ma fiicantiin maxay tahay danta ay imaaraadku ka leeyihiin ee ay ugu yeedhay madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Cabdiraxmaan Ciro magaciisa bana wali saxin odayga imaaraadku horta waxa la yidhi qiimahaaga marmarka qaar haddaanad garanayn waxa laga ogaadaa cidda cadowga kuga ah iyo cidda saaxiibka kula ah iyo cidda dantooda kaa dhex aragta Somaliland waa dal qiimo badan oo wadamo badani ku fogan yihiin in ay xiriir fiican la yeeshaan ama gacanta ku qabtaan ama aan looga horeyn wadamada waxaa ku jira Mareykanka wadamada qaar waxay xiiseynayaan Mareykanka ku jira China ku jira Ruushka ku jira Ethiopia ku jirta Djibouti ku jirta Imaaraadka ku jira Yemen ku jirta adigu waxaanu jaar ka nahay iyo kuwa awood leh adduunka Ilaahay baa awood leh inta kadib qaarkood waxay doonayaan buqcadda inay ku naalo istaraatiijiyadeedii meelaheeda inay nala yeeshaan garanaysaa ay xiriir fiican qaar waxay doonayaan kheyraadka dalkeena ku duugan inay iyagu ka faa'iideystaan oo inagana inay indhasaabaan qaar waa sida Soomaaliya walaalaheen oo kale oo waxay doonayaan inaynaan ka go'in ama Soomaaliya kaliya ay doonayso inaynaan ka go'in haddii ka go'no iyadu dee maaragtay aad bay u weeqmaysaa Soomaaliya bilaa Somaliland waxay noqonaysaa dee imkay fawdo tahay aduu waad ka garan kartaa waxay noqonayso aan soo noqdo su'aashini muxuu ka doonayaa imaaraadku horta hawlo badan buu ka danaynayaa Somaliland imaaraadka oo ay wada Suudaanka galbeedkiisa ay asxaabta yihiin waxay bari dhexdaas heshiis waalan oo turjuub la saxeexdeen oo boob la saxeexdeen imaaraadka iyo shirkadda DP World heshiisku wuu hirgalay baarlamaanka lama marin warqad cadcad baa la geeyey waad ogeyd wixii ka dhacay waxay kaloo la galeen heshiis saldhig madaxweynahan wuxuu ahaa bariga gudoomiyaha baarlamaanka uu ka soo horjeestay heshiiskii saldhigga watii loo geed maalin caday ayaa inta guurtida loo yeeray la isugu yeeray labadii golo laga saaray baarlamaanka Somaliland oo si juuba oo heshiis aan arag oo aan laga doodin ayaa la dhaafiyay waxay madaxweyne Muuse wuxuu laalay heshiiskii saldhigga ciidan uma baahnin buu yiri isagana dagaal badan baa arrinka kala kulmay oo ka dheefay waanu ku saxsanaa waanu ku mahadsan yahay iminka madaxweyne Ciro loo yeeray madaxweyne Ciro marka waxa loogu yeeray walibana san warka ku hayo waxa uu yeedhay Abu Dhabi uma yeedhin Dubai DP World Dubai baa laga leeyahay Abu Dhabi laakiin waa dowladda guud waxay leedahay madaxweynaha waa nimanka imaaraadkan isku tagay todobada xayndaaba imaaraadka isku tagay waa nimanka iyagu maamula so waxaan ka dulbooday imaaraadku waxay heshiisyo gaara la galeen iyagoo Somaliland matalayo ka dabarbarana la faraj gareynaya ama adeegsanaya Ethiopia heshiisyo wax lagu la soo degayo tareen barbara iyo isku xidha Ethiopia oo la sameynayo xataa waxay gaadheen heer ay dowladda Ethiopia ka siiyaan qayb ka mid ah sharkii ay Somaliland ka iibsadeen dekada inay ka siiyaan taasna waa kan marka maadaama madaxweyne cusub yimid meesha barbarana DP World iyo dadka Somaliland oo dana gaar ah ay ku shuraakoobeen madaxweynaha cusub waxa uu garanaysaa shaqadiisa ka qabsanayay DP World heshiiska la galay inuu eego inuu yiraahdo imisa idin soo baxda lacagta imisa khasnada Somaliland ka soo dhacda haddana ku soo dhicin yaa qaata lacagta su'aalo noocaas oo kale baa la iska weydiinayay Soomaa imaaraadku marka waxa ugu yeereen inay dhahdaan arrimaha noocaas oo kale way jiraan laakiin sida madaxweyne Muuse ku yiraahdeen anaga ku siinayna waxoogaa yar oo bishii oo lacaga arrimaha noocaas oo kale arrinkayga heshiiskii waxaas ha dhexgelin alashan nin xoolihiisii laga laaluushay oo kale taas waa mid arrin kale waxa weeye inay eegaan oo dowladda cusub ee timi hankeeda eegaan iyo headlineskeeda ama meelaha aanay dhaafi karin niman soo jeeda ma yihiin niman la laaluushi kara ma yihiin niman magaranaysaa waxay doonayaan inuu garanayna ma yihiin ma niman dalka doonayaan inay dhisaanba ma niman dheef doonaba ay magaranaysaa maxshirka geliyaan oo ay ogaadaan dowladda cusub ee dhalatay
iyo madaxweynahoodu maaragtay haykalka ay taagan yihiin waxay diidayaan waxay doonayaan waxyaalahaas oo kale waa laba arrimood soo maha ta saddexaadna saan u malaynayo in arrinkii Ethiopia iyo heshiiskii Ethiopia ee khaladka ahaayeen anu kasoo horjeeday idiguna kasoo horjeedeen inagu xabasho uma baahnin anyway Soomaali baynu diidnay xabasho maxaa nooga baahan xabasho iyo caddaan iyo ciidan inoo yimaado Maraykan hadduu doonaha ahaadee uma baahnin anagu inaan xor ahaana baan doonaynaa carruurtayda iyo dumarkayga iyo hablahaygu inay xornimadaa ku noolaadaan baan doonaynaa waddankayga ciidan qalaad in la keenin doonayno in ay heshiiska ay waan ka soo galaan oo laga yaabaa inuu abi wado iyo mid afraadoo iska in qolooyinkii berigii waddanka boobay inay arrinkan soo dhameeyeen oo ay rabaan in arrimahoodii ay berigii iyo beerarkii iyo tubooyinkii ay meelaha gashadeen aan la taataaban okay haddaba haddaad tahay wasiir ama official ama sarkaal ka tirsan ama madaxweyne carraba maxaa kula gudboon markaad imaaraadka tagto hal shay baa kula gudboon marka ugu horeysa waxaa kula gudboon in aad everything lagu yidhaahdo iyo everything laguu soo bandhigo inaad tiraahdo waqti isiiya oo aanad waxba degdeg u saxeexin because waxaa dhacaysa even haddii aad tiraahdo waqti isiiya wixii lagu siin lahaa waa lagu kordhinaya waxaa lagu siinayaa moor haddaad markiiba qaadato haddaad tirahdo waqti isiiya waan kasoo fikrayaa dadkii baan ku celinayaa waxaan ku celinayaa golayaashii Somaliland waxyaalahaasoo dhan waxaad helaysaa waqti aad kusoo fikirtana waad helaysaa ismana iibinaysid hore isma iibinaysid ma qiimo dhacaysid dalkaaga ma khiyaameynaysid la tashigu wuu fiican yahay miisaanna waad isku yeelaysaa wixiina waxba laguma hoos gelin karo wixii lagugula heshiinayana wax ka badan baa lagugula heshiinaya haddii degdeg siima door dhalo kaad siimana kiish lacagay dhasha ama kiish lacagay dhala marka waynu la soconaynaa inaguna waa inaynu noqono dad soo jeeda oo dalka waxaa ka socda ma garanaysaa ka warhaya arrinta kale ayaamahan soo wareegtay ma jecli arrimahan qabyaaladii waxyaalahaas oo kale inaan galo laakiin maadaama arrinku taagan yahay waxa fiican inaad mid iyo laba ka tiraahdo waxyaalaha baraha bulshada ka jira arrinta la leeyahay arrinka xiisada ka taagan maarayaha dekada berbera waxaan dowladda cusub maadaama ay wasiiradii si fiican u qaybisay sida dadku dhan isku raaceen waxyaalaha qaar baan aan la taataaban baa jira uma baahnidin mucaaradad degdega bil ma joogto dowladda cusubi kii aad keentaana madaxweyne waa kii adigu kuu shaqaynaya laakiin Somaliland sida lagu yaqaano deegaamada waa loo yara kala badan yahay sida dadka qaar yidhahdaana waa la kala leeyahay waynu wada leenahay dalka meesha doontaad ka shaqaysan kartaan laakiin meelaha qaar dadku waxay ka yihiin sensitive haddaad dayso xabad daanyeerkii hore ahee walibana kii gaarka ahaa ee meesha joogi jiray aad u dhiibto madaxweyne waa saasay ku qurux badan tahay ma garanaysa yaryarkan kale ee qolooyinkan waana lagu wada farxaya hawshaadana wado wasalaamu calaykum